wardegdega siyaasiyiinta ka soo jeeda maamulka Somaliland ee ku metelaya dawladda federaalka Soomaaliyeed ayaa soo saaray warmurtiyeed ay sheegeen in ay ku cadeynayaan mowqifkooda siyaasadeed. maalmihii ugu dambeeyay tan iyo intii yuhuuddu ay aqoonsatay maamulka Somaliland waxaa aad loo hadalhayay isla markaana isha loogu hayay aamusnaanta siyaasiyiinta Somaliland ka soo jeeda ee dawladda federaalka ku metelaysa iskugu jirta wasiirada, ra'iisul wasaare ku-xigeenka labaad iyo waliba mas'uuliyiinta kala duwan markaas xilal kala duwan ka haya dawladda federaalka Soomaaliya. goordhow ayay soo saareen war-saxaafadeed ay ku sheegayaan in ay ku cadeynayaan mowqifkooda siyaasadeed iyo waliba sidii xal looga gaari lahaa khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamul goboleedka Somaliland. haddaba siyaasiyiintu maxay sheegeen? bal inteena falanqayn kooban eena ku samaynin waxaan rabaa inaan dhageysano qodobada ay soo saareen ee ay markaas sida wada jirka ay ugu dhawaaqeen. dabcan xusuusin goobta waxaa taagan xubno ka tirsan golaha wasiirada, xildhibaano, senataro iyo sidoo kaleeto mas-uuliyiin kaleeto oo markaas xilal ka haya dawladda federaalka sida ergo uu madaxweynuhu ergayo markaas madaxweynuhu magacaabay. bal wax yar horta aynu wada dhageysano mowqifkooda siyaasadeed. haddaanu nahay siyaasiyiinta ka soo jeeda Somaliland waxaanu ku talinaynaa arrimahan hoos ku xusan. haddaanu nahay siyaasiyiinta ka soo jeeda Somaliland waxaanu u joognaa midnimo, waxaanuna aaminsannahay in danta dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan ay ku jirto wadajirka. laba, dawladdii Soomaaliyeed ee 1 July 1960 dhalatay waxay ka koobnayd labadii dawladood ee Soomaaliya iyo Somaliland. hanaanka lagu soo celin karo midnimadaas na waa in dib loogu laabto heshiiskii midowga, dibna loo qeexaa nidaamka siyaasiga ah ee Soomaali dib u midayn kara. 3, si aanay u gaarin dhibaato aan la mahadin doonin wadajirka iyo is-ahaanshaha dadka Soomaaliyeed waxaanu labada dhinacba ugu baaqaynaa waa Somaliland iyo dawladda federaalka gaar ahaan dadka hoggaanka u ah bulshada in la joojiyo adeegsiga hadallada kala irdhaynaya dadka Soomaaliyeed. 4, marnaba uma aragna gar iyo dow in xalka mushkiladda Soomaaliyeed laga dayo tafiraadda taariikheed iyo sooyaalka siyaasadeed ee dadka Somaliland, tacadiyadii loo geystay iyo in weji qabiil loo yeelo khilaafaadka siyaasiga ah ee jira. waye nimankaas hadlaya siyaasiyiinta waa siyaasiyiintii Somaliland ka soo jeeday ee ku metelayay dawladda federaalka Soomaaliya. markaan dhinac kale u dhigo kuma jiraan siyaasiyiinta gobolada maamulka waqooyi bari SSC Khaatumo la odhan jiray ka soo jeeda deegaanadaasi ka soo jeeda kuma jiraan dadka meesha taagan. haddii aan sii iftiimiyo siyaasiyiintan waxay ka kooban yihiin beeshaysaa iyo sidoo kaleeto xubno yar oo ka soo jeeda gobolka Awdal ama beesha Samaroon. si dadku ay u fahmaan ayaan u yeelayaa, laakiin guud ahaan markaan isku qabanno waa siyaasiyiinta Somaliland ku metelaya dawladda federaalka Soomaaliyeed. maalmahan marka waxaa isha lagu hayay maxay u aamusoon yihiin ilaa maysan cambaaraynin, ma aysan hambalyaynin aqoonsigii Somaliland yuhuuddu ay siisay. maxay u aamusan yihiin baa lalahaa. ugu dambayn mowqifkooda waad maqlaysaan, mowqifka ay soo saareen ama go-aanka ay ku baaqeen waad maqlaysaan, walow uusan xal u noqonaynin khilaafka siyaasiga ee maanta taagan ee ka dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamulka Somaliland oo weliba gaar ahaan Somaliland iyagu aysan waxba ka goynin taladeeda, go-aankeeda aysan waxba ka goynin, ay ahaayeen siyaasiyiin ka soo jeeda Somaliland oo xamar iska joogto mishaarkoodana ka qaata. haddana talooyinka ay soo jeediyeen qaar waa muhiim, qaarna xaqiiqada kuma salaysnee waa intuu Muuse Biixi shalay lahaa waxa weeye siilaanyo u lahaa
daahir yaala kaahin uu lahaa ninka la yidhaahdo uu lahaa ika la yidhaahdo ciro uu lahaa intii unbay iyo gabdhuhu ay bannaanka la taagnaayeen oo maxay tahay inta laba dowladood ayaa midoobay 60kii xaqiiqada haddii laga hadlo oo runta la iftiimiyay dadka Soomaaliyeed way isku soo dhawaan lahaayeen sida iyaguba ay sheegeen laakiin xaqiiqada haddii la baal maro oo koonfurna ay inkirto waqooyina ay inkirto koonfur taariikhdana runta laga sheegi waayo heshiis sidii lagu gaari karana laga hadli waayo dadka Soomaaliyeed way sii kala fogaanayaan bal waliba Somaliland baa hadda tagtay maamulo kaleeto ayaa tagi doona oo ayagana dawlad madax banaan ku dhawaaqi doona taasay noqon doontaa waa marka xaqiiqada ka hadala way xaqiiqdu maxay tahay marka iska daa xagga iska dhig nimankan hadaladooda dhinaca iska dhig xaqiiqdu maxay tahay 60kii yaa midoobay laba dowladood baa midoobay mise dad Soomaaliyeed oo isticmaar u haystay iyo dad dowlad Soomaaliyeed oo calal leh ayaa isku yimid yaa midoobay horta 60kii waxaa midoobay dadka Soomaaliyeed oo idil oo koonfurta dowlad ka dhistay iyo dad isticmaalku u haystay oo gadaal laga tagay oo waxa weeye Somaliland meesha hadda la yiraahdo ka socda ayaa isku imaaday calan bayna lahaayeen oo blue gas bay lahaayeen laba dowladood ma aysan ahayn hadday laba dowladood ahaayeen dowladdan Soomaaliya la oran jiray oo xilligay kuwan Hargeysa imaanayeen Soomaaliya ay ahayd calan blue gay lahayd kuwan maxay wateen ma magac dowladeed bay wateen ma calan dowladeed bay wateen ma qawaaniin iyo caalami oo dowladeed bay wateen ma aqoonsi bay wateen maxay wateen waxba ma wadeen waxay wateen malaha nimanka xoogaa isticmaalku meesha ku daahay haystay iska soo baxay dowladnimada soo doontay wax soo raadsaday sida hadda kuwa meesha taagan xilalka u soo doonteen rag xil soo doontay baa Hargeysa ka yimid rag xil soo doontay oo xilal raadisa oo nolol raadisa ayaa Muqdisho yimid amarka xaqiiqada ka hadala way si kastoo laakiin noqotaba maanta in xildhibaan ah senator ah wasiir ah waxa weeye xilalkii dalka dhan haysta canshuurtii dadka Soomaaliyeed laga qaadayo cunaya reerkooda aan waxba ka keenaynin in maanta intuu Muqdisho soo istaago uu yiraahdo dib ha loogu laabto wixii lagu heshiiyay waxgee ku qoranay aan ku laabanay intee ku qoray labada dafireen halkee ku qoray aan ku laabanay qoraalka isaga halkee yaala xagee ku qoray ma dastuur Soomaaliyeed laga dhaxlaadin oo ku qoray yahay ma warqada la qoray baa yaalo oo xafiisyada yaalaan intee loo doonaya ma dad xilliga taagnaaba jiro oo waxa weeye maanta lagu kalsoonaan karo oo ayaga loo dhiibi xagee yaala heshiiska lagu laabanayo in maanta marka ay la soo istaagaan waa arrin muujinaysa dhagar iyo khiyaamo ay la taagan yihiin magaalada Muqdisho ay la joogaan xaqiiqada ka hadala way waxba dadka Soomaaliyeed joogitaankoodu ma soo kordhinin way joogeen intay Somaliland ay gaarka u taagnay way joogeen maxay hal maalin oo isku soo dhawaasho ay sameeyeen maxay hal maalin dadka Soomaaliyeed u soo kordhiyeen maxay midnimadooda ay ka shaqeeyeen oo isku keeneen ma jiro waxay isku keeneen ma jiro waa markaan xaqiiqada ka hadala way maanta hadalladoodana waxa ka kaliya ee ka yeedhayo waxa weeye madaxweyne annagana siiya dadka Soomaaliyeed oo kale oo dhanna ra'iisul wasaaraha qaataan ama annaga ra'iisul wasaaraha siiya dadka Soomaaliyeed oo kale oo dhanna madaxweynaha qaataan war madaxweynaha waa lagu tartamay ma cid siyaasi jirta war ma xukun laysa siyaa jira soo laguma tartamo mid labaad dalka Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed markay wax qaybsanayaan deegaan baa wax lagu qaataa haddii laga badan yahay oo deegaan ahaan laga badan yahay haddii population ahaan laga badan yahay sideed ku qaadanay ra'iisul wasaare ama madaxweyne aad ku hays tusaale hadda madaxweynuhu markuu daarood noqdo hawiya la siiyaa hawiya waxa la siiyaa meesha la yiraahdo ra'iisul wasaare madaxweynaha hadduu daarood noqdo ama daarood hadduu madaxweynuhu noqdo hawiye daarood baa ra'iisul wasaare la siiyaa sababta loo siinayo daarood wuxuu leeyahay intaas oo maamul goboleed waqooyi baa leedahay waa lagu la degahayay oo hadda waka maamul goboleed waqooyi bari la yiraahdo waa ka soo baxay oo waa dhulka ugu badan Somaliland markii laga hadli jiray waaga hore ama gobolada waqooyi la dhihi jiray dhulka ugu badan daarood baa degay wakaasoo hadda waa ka go'ay Puntland oo 3 maamul goboleed u dhiganta gobolka bari bas la eg waxaan Soomaaliland oo dhan la leeyahay duusa ka weyneynba
وقبل كبري كلية قال كعي إيه مقالة اللي يراهدو مقالة بوساسو تضرب بقول إيه كنت كيلومتر بيسكو جرتا أديكنا ميش وقفك إيه مقالة إسكو كافك ومركز كدقاق لمقالة عينبو أكدقاقلو أو السعود تماشي لهرجيسة وعلى ما بقول كيلومتر وي وحكير وليبه marka gobolka bari baa dhulka haysato dhalle arbaad rabtaa inaad ra'iisul wasaare qaadato ama aad madaxweyne qaadato ma suurtagal bay noqon Puntland baa dhulka haysato 4 jeer iyo 5 jeer ka weyn waa Puntland kaliya marka runta ka hadal weyn saamiga siyaasadeed ee maqan ee laga raadinayo maanta 2026 la raadinayo meeshu ku maqan yahay Soomaaliya ma aha aan dadka reer Soomaaliya ka soo jeeda tabtaasan leh saamiga siyaasadeed ee maqan kuma maqna Soomaaliya meeshu ku maqan yahay soo cadaysta hal iniga raadiye waxa yimaada heshiis qoran oo 60kii la qortay oo laba dawladood oo isku imaaday haduu jiro iyadana la imaada dadka Soomaaliyeed soo hortusa oo warbaahinta tusa oo TV-yada intaas kugu yeedaan kaasbo dha laakiin inay gabadha banaanka ordaysa waxay ku sheekeynaysaa niman siyaasiyiin ay la soo fadhiistaan wax umada Soomaaliyeed qabata ma balana la qabtaan baritan waan ogahay kuwii shalayto mishaarka la siinayay abwaanada inta laga dhigtay argagixisada aaday kuwaas waxba ma doorin doontaan waan ogahay marka runta ka hadal way waxa ma doorin doontaan argagixisada bad aadi doontaan magaalada Muqdisho culays baad ku tihiin mooyeen waxba uma soo kordhinaysaan umada Soomaaliyeed midnimada Soomaaliyeed dadka noocaas oo kalena anigu waxaan dhihi lahaa iyaga iskeeni doonee in gabi ahaanba laga saaran dhilaaw systemka dawladnimada أوتاس عندها بعد الدولة وعن كل تلا سيستم كدولة ده إن لقى صار ماشي رمان هذا حتى الدولة نقول يسوى سدح مجاله ليستا وكذا سدح مجاله حتى الدولة دي نقول يسوى وابلا أركياي سيستم كدولة على لقى صار عندها حقيقة مركان كذا لوي سببتها صدن إيا الشنصر بس صدن إيا أفر صني سومال لانجون يستاجهاي رئيس الوزراء كحجين بيلهاي كحجين كلابات بيلهاي وزير كأيدا أما وزيرada أيدا bay lahaayeen inta soo wasiir ilaa 4 wasiir 5 wasiir bay qaadanayeen safiiray lahaayeen qunsulay lahaayeen agaasinay lahaayeen ergey lahaayeen la diray waxa weeye ergeyo inta lahaayeen soddon iyo dhowr ka sar maxay ka keeneen Soomaaliland Hargeysa maxaa laga keenay waxa laga bakay waxba mowqifkiisa kama bedelin maalinta lagu dhawaaq wax iska bedelay ma jiro wax dhaqaalaha noqdo ama dad ha noqdo wax ay ka keeneen oo ilaahay xaq leh ma jiro dadka Soomaaliyeed ma sidana marka la iskugu huwisnaanayo la iskugu hursanaanaya waligeed ma saasar hanaa ma sida u baan hanaayo ma dad aan waxba keenaynin ba umada Soomaaliyeed ku korhayna laguma korhayn karo ma lagu korhayn karo Somaliland laba arrimood ayay ku soo noqon doontaa waa laba arrimood dhageysta si fiican u dhageysta laba arrimood bay ku soo noqon doontaa koow waxa weeye xoog waa qodob laba waa system dawli ah oo degan oo midkan isgarabyaca ee waxa weeye siyaasiyiintu barokayaasha ee kuwii iyaga ka imaaday ay wax iska boobayaan ee marna xagga u siiyaan marna xusay isla xisaabtan la'aanta aan ahayn labada wado markii la helo ayay Soomaaliland soo laabanaysaa wixii kale oo dhan iska dhaaf system dawladeed oo degan diblomaasiyad degan lagula dagaalamo dhinacyo kala duwana isla xisaabtan leh markii la helo iyo awood dawlad awood leh labada arrimood markii la helay soo laaban bariya ku soo laaban mayso oo mas'uul xillasiya ku soo laaban mayso oo lacag loo diray ku soo laaban mayso oo saami qaybsi siyaasadeed ku soo laaban mayso oo heshiis 60kii xataa hadii la keeno ku soo laaban mayso markaan runta ka hadal way marka siyaasiyiinta marka iska hadalay adeer way naga marortay waxii loo inaga maqan ma jiro wax heshiis oo la hayana ma jiro haday jirtan idinka halkan keeni lahaa sababta wasiirkii maaliyadda taagan wasiiradii oo dhan baa taagan senataradii baa taagan heshiiska aad leedihiin wuu jiray ma la keeno oo halkan loo soo dhigo